بسم الله الرحمن الرحيم. بريتو والله تاني لحظة بيشا كويتنادها gobolkan Victoria doorashada ayaa jirta maalinka ugu dambeysay weeye. Intii hore pre-poll baa lasoo sameynayay. Anagu walba waxaan u codeynayaa Labour-kan taageerayaa sababtoo ahaa laba urur unbaa talada qabataa waddankan Australia oo dowladda gacanta ku haysa oo macnaha gacanta ku dhigi waa Liberal iyo Labour. Liberal dadka Afrikaanka toos ayay u weerareen iska badaa inay wax noo qabtaane khaasatan ninkan hogaamiyaha Matthew Guy sanadkii hore doorashadii hore isagaa ururka hogaaminayay waana kii si tooska inoo weeraray. Daniel Andrew ninka hadda Labour-ka hogaaminaya ee baramiyaha ahna si toos ayuu inoo difaacay intaaba la gaarinba waxyaalaha kale ee Labour iyo Liberal ay ku kala fiican yihiin. saa daraadeed waxaan ku boorinayaa dadka inay codkoodu muuqdo oo waxaan maclan lahayn aan waqti la iskaga bixinin ee ruuxa joogitaankaaga dalkan aad joogto waddankan Australia ee wax badan inoo qabanaya kugu xoojinaya kugu boorinaya aan lahaynin sidii video hore dad kale aan u soo diray ay tusaysay khalad bayba ahayd show dadkan inay waddanka loo ogolaado aan dhahaynin. ururkaasi waa Labour haddana shakhsiga hogaaminaya Daniel Andrew waa shakhsi inaga si toos ah inoo la sabtay isagoo weliba wax badan inaga rajeyninin asaga xataa shakhsi aan meesha laga soo doorto Afrikaan badan ma joogaan oo nin hadda la leeyahay cod ayuu inaga raadsanaya ma aho. doorashadii hore lasoo dhaafayna cod aad u badan yuu ku guulaystay khaasatanna markuu liberaalku ay dadka Afrikaanka ahaa toos u weerareen si ay cod u helaan. haddaba saddexda kursi ee meelahan Soomaalidu area magaalada u dhow inarka ah ay ugu badan yihiin waxaa weeye midka dhexda ku jira mid weeye Melbourne waa midkan waxaa ka tirsan Carlton iyo North Melbourne Kensington iyo East Melbourne West Melbourne yaa ka tirsan meelahaas ka tirsan iyo magaalada barkeeda iyada inteeda badan cityga yaa ka tirsan. marka haddaad rabto kursigaasi inaad u codeyso gabadh la dhaho Rebecca ayaa taagan. gabadhaasi waxay kaga jirtaa meesha aad aragto waraaqdeedii waatan ay soo qortay in la raaco si loogu codeeyo iyada waa midaas weeye. waxay rabtaa marka in loo codeeyo iyada number 1 laga dhigo waa kan halkaa in iyada number 1 la geliyo. inta kale marka haddaad rabtaa iyada say u samaysay waad raaci kartaa kanaad ka dhigi number 2 kanaan haddana aadi 3 ka dhigi kanaan 4 ka dhigi kanaan 5 ka dhigi kanaan 6 ka dhigi kanaan 7 ka dhigi kanaan 8 ka dhigi kanaad 9 ka dhigi. waa intaas marka waa inaad mid kasta number siiso labana inayna isku number noqonin soo codkaagu u tirsamo. haddii kale ood rabto inaad ka fududsato intaad midka ugu horeysa ayada aha 1 ka dhigto sida alla aad rabto ood inta kale u tirini dad ka soo qaado kale haddana kan 1 kanay 2 ka dhigtana 2 ka dhig marka 3 4 5 6 7 8 9 saa u dhamaystir. sidoo kale kuwa kalena waa sidoo kale haddaad degantahay xaafadda Brunswick isagana ninka William la dhaho Mike ayaa Labour-ka ahaa oo u sahla oo suurto gelinaya dowlad Labour inay macnaha soo noqoto isagaa number 1 ka dhigi kalaad kan ku xigana ayaad ka dhigaysaa number 2 markaasaa sidii isaga uu ku yiri baad u raaci ama saan sheegay markaa isaga number 1 ka dhigto inta kale yaad saadunta ka dhigi 2 3 4 saadunta u samaynaysaa. Richmond iyadana waa sidoo kale tawaye magaceedu wuu ugu hooseeyaa gabadha Lauren O'Dwyer la dhaho kaa markaad raacdo kaas marka aad meesha laga codeynaya tagto 2 waraaqood baa lagu siin markii magacaaga laga saxo meesha inaad diiwaan gashan oo codeeyo tahay. mid waa mid yar oo tan oo kale ah haddaad Melbourne tahay tan oo kale lagu siin oo magacyada ay tabta ugu yaalaan waxaad codeynayna ku yaalaa. haddaad Richmond tahayna tan oo kale lagu siin oo saas ay ugu yaalaan dadka maartay magacyadu ay saas kale ugu leefaqan yihiin. haddaad Brunswick tahayna aasaa lagu siinayaa. haddaad Essendon tahay oo Flemington ay ka tirsantahay iyadana sidoo kale way raaca fadlan. Danny Besan ninka wasiirka housingka hadda aha ayaa laga soo doortaa halka asagana
waa Essendon weeye, waa Flemington iyo Ascot Valley ereyadaasa ku jirta. isagana waraaqdiisa intaad raadisaan dadka laybarka ah meesha la taagan yahay waad arkaysaa, ka qaata nambarkiisu isagoo meeshu kaga jira. hadda ma garanayo, isagana marwan ka dhiga, markaa deedna saa u raaca. waraaq marka waa waraaqda yarta ah oo waraaqda dowladda laga dhisa weeye. kuwan waa midda ugu muhiimsan ee dowladda laga dhiso. qoladan ku bada turaasta ugu badan heshaa halkan ayaa dowladda dhisaysa, oo dhaqaalaha iyo hay-adaha wax walba gacanta ku dhigayso, gacanta ku hayso, maamulaysa oo go-aan qaadanaysa. walidaa darteed ururada yaryarka ah inaynan afka ka hadlaan oo doodoodaan mooyeene gacanta wasaaradda ku dhigi mahayaan iyagu weligoodba. saa darteed dadku inay la socdaan ruux independent ah iyo urur yar midnana wax kuma samayn karo, afkan buu kaaga hadli karaa mooyeene. marka waraaqda koobaad waa taas ee lagu siin, waa middan yarta ah ee dowladda laga dhisaya saan idhi. midda ku xigta waa waraaq weyn, aad bay u ballaaran tahay runtii. waraaqdaasi hadda waxay soo weyneeyeen oo keliya aha qaybta iyaga ay kaga jiraan, sababtoo sawir halka lama soo gelin karo, aad ayay u dheer tahay. marka haddaad rabto laybar inaad midka uga codayso waxaad raadini xarafka b. xarafka b waxaan u malanayaa qaybta raaca labaad ayuu ku jiraa. laba sibaad u codayn kartaa inaad dadka korka oga codayso oo aad ururada codkaaga aad siiso, iyo inaad adigu dadka hoosta ka doorato dadkoo dhan inaad nambar kala siiso. laakiinse hadda waa la yara sahlayo ilaa 6 haddaad nambariso, ka koowaad, ka labaad, ka saddexaad, ka afraad, ka shanaad, lixaad aad siiso, waad sii wadi kartaa, 6 waad ku istaajin kartaa. laakiinse midda ugu sahlan waxaa weeye inaad ururka aad rabto ama kooxda aad rabto codkaaga aad iyaga siiso, iyaga marka deedna sida kale say rabaan u isticmaalaya. marka haddaad rabto laybar inaad siiso, Australia Labour Party waad raadin kartaa oo halkaa ku jira Australia Labour Party waad ku arkaysaa, ama Pdaas raadi, Pda hoosteeda boxka ku yaalloon 1 ku qor. haddaad maaragtay aad tig siisana iyadana waa caadi way shaqaynaysaa, maadaama hal mid basa aad dooranayso. marka saas codeeya. waxaan idinka rajeynaya inaad codkiina oo isticmaashaan sida aad fariin ku gudbin kartaan, dadka idinku fiicanna aad ku dooran kartaan, waxna idin qaban karaa. keli uun ma oo ruux hadal wanaagsan ku dhahaya. hadal wanaagsan haddaad raadinayso, ruux wadooyinka iska socdaba hadal fiican wuu ku dhihi karaa, waxaasaad istaahishaa wuu ku dhihi karaa, waxaasaan isku day inaan kuu qabto wuu ku dhihi karaa. laakiinse ruuxa gacanta awoodda ay u gelaysa alla awood lehe ayaa muhiim aha inaad maaragtay meesha uu joogo aad horta ku taageerto, kadibna markaa asaga tiraahdo maaragtay maxaad ii qaban kartaa. wax loo xanaaqo iyo wax layska eedsheegto meesha midna ma yaallo. wuxuu waa dowladdeenii, waa inaad maaragtay waa siyaasad dimuqraadiyad aha. adduunka saan baa loo looltamahayaa, dimuqraadiyaddu saasay u shaqaysaa. waxbaan xanaaqsanahayo, qolaan u xanaaqsanahayo, qolaan necbahayo, meesha nacayb iyo jacayl midnana ma yaallo. waxaa weeye uun meesha dantaada ka gudan lahayd iyo sidaad u gudan lahayd dantaada weeye. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.